su-aasheedu waxay tahay adoo raalliya wala adoo raalliya niyow dad badan oo iska masaakiina jira oo ma garanaysaaye Soomaaliyeed oo dadka soo booday ka mid oo badan oo aan arkay runtii aan la kulmay niyow dad waxaa jira aan runtii aan dadkan soo dhexgelgelin ama dad ma garanaysaa nolosha la tacaalayo dee macnaha burburinada dhibaatooyin badan iskaga furan yihiin baa jira marka aan haleelin marka dadka TBS-da haystaya marka oo dhowr qof oo aan arkaya oo dhalinyarta Soomaaliyeed dadka soo boodeen marka walaalow arrintii iyada ahayd maxaan malay su'aasha waa macnaha waa ilowday arrintaa iyada walaalow dhowr qof baa igu soo celceliyay oo dhalinyarta saxaabta nahay niyow ma jira walaalow wax u kacay oo dad macnaha waxa igu dhahay baan arkay wallahi awoodi waayeen ma garanaysaa inay iska bixiyaan ma garanaysaa iska bixin waayeen kirooyinkoodii oo guryaha hoosta kaga jira waxoodina dee laga xayuubiyey dhibaato aad badan dadka loo geystay inkastoo dadka wada loo wada geystay laakiin dadkaas aad iyo aad bay ugu nugul yihiin dadka iyadaa walaalow dirisow ma jiraa wax cusub oo soo baxay oo hadda arrintan iyadaa intii baryahana maadaama wixii walaa dhammaadka yihiin dadkaas weli dad badan baa jira oo aan dee kolley dad badan baan u diray looyaro free oo gobolku leeyahay baan u dirdiray anuba aad uma aqaano laakiin dad waxyaala nala wadaagay baan u diray marka arrintaa iyadaa walaalow ma jirtaa qodobka muhiima waad mahadsan tahay walaalow السلام عليكم ورحمة الله إدريس وين السلامي دمانتين ولا ما محل هذا ما وقت كان هذا بدشين لايف كي أتصور ترتين هادون بانين أركي maya walaal ma bedelin waxaa weeyaan laba habeen baa howl yar qabsatay caawana sidoo kale marka ma soo geli karo caawa xilliga markii la gaaro marka maanta oo maasameyn insha Allah habeenka isniinta caadi baan ku laaban doonaa dulayla schedule-ka hore insha Allah ما شاء الله تبارك الله حاليا بين هرا وادين واي مركا ساعد الله وحي راي نو soo baxeen halka wareysiga saxda ku heli jirnayna ma laga baabiye alxamdulillah iba marka arkaa isku soo diinamada السلام عليكم إدريسو. أيوة ولا السلام عليكم إن شاء الله. أخيارتان ربانيو إنا ويديو يا أديك هديو معنا حوه غالتهاي نيو كارك لبدا السنة أيان هستدادكي تون توغي إمادا أيان أهاي وحي قد عاي السنة كهدد لما هذا بيش الحادي قد عاي لح بالإيدو كد إمانتا أيان وحان حري توني فوركي ديسمبر أول ما استيقظ دخل السنة يوحي إيقا مقاني هاي إلا بلوت marka extensionka warqadaasaan ku shaqeynaya oo 15 bilood ah marka ma jira dad uu u soo dhacay kaarka uu ka maqnaa almost sanad iyo ka badan kaarkii employment way soo maaha work permit work permit marka 2 sano ka maqan yahay hal sano iga maqan yahay iyo 2 bilood اوكي اصحابتان بل ويديننا ان شاء الله هم الادور هاليا سؤال شهران هم ka jawaabaya arinta horta TBS ka walaalkeeni horeey uu weydiiyay waqtigii la qabtay waxa kama dhino oo March ba 17keeda ku eg tahay marka wixii maxkamad ah ee la xareynayo ama la xareeyay laga shaqeynayay maalmaha soo socda baan ogaan karnaa ilaa hadda organizationada aniga aan personal la xiriiray waxay ii sheegeen inayna hawshaas iyaga ku jirin in waxbana ka maqlin marka laakiin dad kale oo ii sheegana waa jiraan oo siyaasiyiinta qaar baa arrintan og iyo hawl bay wadaan lagu yiri marka wixii soo shacab waan ogaanaynaa insha Allah arrin hore u dhacday ma aha marka waxaan ka cabsanayaa inay arrintan ay Soomaalida ka hoos baxdo oo inta la siraado aan cidna lagu hadlayn inta dadaan la aqoon lagu hadlayo in ma taqaana liida waqtiga waa dhacay حتى هذا الوقت يقدر حتى ستيل أبيل ولا قادن كلا لكن إن سياس لوجو قادن كعب سنة نيو دنك ووك برميت كا تذكر اللي هذا كان لوجو ما دورر كان كم قلنا حاول قارئ كذا هذه واجران أو السنة دي حاجة سواي واجران مركز هذه هذا ورقة extension كهي ستامية extension كهي ستا سنة إيه الله بلون مكان مقنتهاي marka su'aasha marka waxa weey dad xilliga inta leeg ay gaartamiya ay ka maqan tahay oo helay ina weydiiyaan rabaa qof hal sano iyo ka badan kadib uu soo dhacay ma jiraan kaarka asxaabta arrinka waa arrin popular waaye 180 qof aan dhageysanayso bal haddii jiro arrintaas experience same thing gobolka joogtana manasara haddii arrintaas ay qof ku dhacday halkaan garanay ama qof ay ku dhacday garanayso oo dee muddada intay ka maqnay haddana u soo dhacay
bal soo qabsada oo noo sheega arrintaasaan u baahanay inaan ogaano hadduu laa yidhaahdo aniga intaan kaaga warrami karo waxaa weeye dhalinyaro badan oo halkan soo qabsato waa maqlay oo dhahayeen sanad iyo xoogaa baan sugaynaa weli oo extensionkooda isaga sii shaqaysanayay way jiraan ma fahantay marka waa helaysaa insha allah informationkaas waa helaysaa insha allah dad ay ku dhacdaa meesha ka heli doontaa insha allah ramadaan mubaarak diris oo bal soo caawa dhawaada waxaan mala jaanis anaa meesha ku haystee maanta dadkii su'aalaha qabay waa shaqayn niyo walaalow maadaama xagga taraaga aad iyo aad ugu dhundaloosho waxaa jiray idrisow in la dhahay ninkan la dhaho maxaa dhahay shin device miyaa la dhahaa kan xunka haysta DOT da wuxuu dhahay ama de sharciga ay soo saareenba waxay dhaheen qofka haddii uu ka dhaco waxa la dhaho ii sheegay CDL-ka bahalkiisa kaarka caafimaadka hadduu dhaco miyuu saameynaya qofka masaasi ku waayayaa mise oo waqtigii CDL-kiisa una dhicin oo laakiin uu dhaco ma garanaysaa kaarka caafimaadku masaasuu ku waayayaa liisankiisii mise wuu cusboonaysiin karaa ilaa inta uu ka dhacayo liisankiisa dheydka ku qoran arrinta ayadaa walaalow bal iga warraniyo waaba ku yar confuseniyo cid aad iyo aad u taqaanana ma arag okay ni horta laysinka iyo CDL-ka xataa qofka hadduu luus gareeyo CDL-ka horta laysinkiisi yaraaya gaariga wuu haystaa mar walbo anada waxaa rabta inaan kala saarno laakiin tan CDL-kan ka hadlaynaa CDL-ka qofka hadduu haysanin green cardka 10 sano ama citizen uusan ahayn waxaa loo yaqaanaa non domicile wax la yiraahdo non domicile haddii uu non domicile yahay oo kaarka caafimaadka ka dhaco ma loo cusboonaysiinaya oo laysankiisa weli uu valid yahay ma loo update gareynayaa waayo oo ma sii wadi karaa traagi mise waa saasaa looga qaatay laysanka okay taa waxay ku xiran tahay case by case waayo waqtiga hadda maanta la taagan yahay systemka dowladda suu u weyn yahay darteed oo u weyn yahay tusaale haddaan kuu soo qaato gobolkan ohio waxay samaysaa qofka hadda haysta non domicile-ka ah ama work permit-ka ama haysta waxyaalahan haddaan ka hadlayn oo kale oo aanan citizen ahayn oo green cardka 10 sano haysanin qaarna way kala laabteen oo downgrade bay ka dhigeen qaarna medicalka markuu ka dhacay oo cusboonaysiiyeen way sii wadeen systemkiya system aad u weyn oo dadka hal mar iyaga xataa economically ka fikirayaan ninka la yiraahdo Sean Duffy wuxuu yiri 200,000 oo dareewalo ayaa haysta laysinka non domicile-ka ah macnaheedu waxa weeye dadka aan citizen-ka ahayn ama green cardka 10 sano aan haysan 200,000 oo dareewalo waa yiri wuxuu yiri haddii 200,000 oo dareewalo aan berrito wada kansalno dhaqaalaha waddankay saameynaysaa okay marka ma sameyn karna saas marka waa inaan kuwa qaarna aan ka joojinaa qaarna ay sii wadaan marka hadda waxaa arkaysaa systemkii dowladda wuxuu yahay inay dadkii qaarna ay medicalkii ay u update gareeyaan si ay usii wadaan qaarna markuu ka dhaco systemkii intuu trigareeyo ay dhahaan downgrade baan kaa dhignay laakiin mid ogow tallaabo walbo hadda ay sameynayaan Sean Duffy iyo Trump administration ay sameynayaan waa temporary haddii administrationkan isbedelo wax walba sidoodii hore ku laabanayaan everything ay hadda sameynayaan sidoodii hore ku laabanayaan waayo sharci ma aha hadda mararka qaar wareegto uu soo saaray chiefka FMCSA-da ayaa sharci lagu bedelayaa awood xataa yaa doortay isaga shacab ma dooran waa qof xafiis loo dhiibay waa asaga sharciga CDL-ka go'aan ka gaaraya mararka qaar Sean Duffy oo secretary of mataqaana transportation go'aan gaaraya xataa Trump ma aha taa waxay ka dhigan tahay maadaama ay awood leeyihiin way ka faa'iideysanayaan si rabaan u galahayaan laakiin arrinkan waa arrin temporary waaye hadduu jiro xataa qof laga laabtay iska sugo waqtigeeda imaan doona insha Allah marka waxaa daameynaysa waa 50-50 qofkii haystay ama legal sax ah ku yimaada waddankan ama yusku laakiin hadduu non domicile CDL u yahay daameynaysa DFE-da ama wasaaradda gaadiidka ayaa go'aan ka gaadhay horta wala qaashaa gaabi bal okay maalin dhow meesha in laisku feeraan ka cabsanaya haye sug aan hal mid kuu sheegay 1 second
okay tusaalaan ku siinaya qofka non domicile horta waxaa la yidhaahdaa non domicile qofka maanta qaxootinimada lagu keenay ee aan haysan green card ka 10 sano ee haysta mataqaana I-94 ka wuxuu noqonayaa non domicile qofka derbiga ah ee warqadda work permit ka haysto ee CDL ka qaato wuxuu noqonayaa mataqaana non domicile qofka asylum ka ah I-94 ka la siiyey wuxuu noqonayaa non domicile qofka company uu meeshan shaqo u keensaday oo waddan kale laga keenay kaliya inuu shaqeeyo loo keenay wuxuu noqonayaa non domicile qofka ilmaha yaryarka ee hadda daaka loo yaqaano waalidiintoodii halkan keeneen iyagoo yare waalidiintoodii sharci darro ku soo galay oo darbiga ka soo booday ilmo yaray wateen ilmihii waddanka kuma dhalanin laakiin markuu waddanka imaanayay ilmo yar u ahaa minor u ahaa go-aankiisa kuma imaanin daaka loo yaqaanaa daaka every 2 years la siiyaa mataqaana warqadooda loo cusboonaysiiya qaar waxaa jira 40 jira ah ayagoo 2 sano jira la keeno waddanka haddana 40 sii maraya aan weli sharci haysan baa jira oo every 2 years warqadda loo cusboonaysiiyaa oo ilaa hadda waa la isku haystaa koongareeska nimankaas waxaa u badan dadkan wadamada deriska u badan ulujeedaday ka leeyihiin nimankan caddaanka ah ulujeedada waxaa weeye dadkan derisyada ah Cuba iyo Venezuela iyo Mexico iyo meelahan ka imaanayaan hadday sharciyada citizen ku wada safaan waddankay ka qaadayaan marka waa strategic la isla ogyahay dimuqraadiga republikaanka isla ogyihiin ilmihii ayagoo yaraa halkan la keenaya Americanized noqonayaan luqadii baranayaan wax walba jaamacaddu ay aadi karaan social security card ay leeyihiin laakiin weligood citizen lama siinayo xuquuqda lama siinayo saasaa lagu helaya kuwii xataa hadda way saameysay oo CDL ka lahaa oo ku shaqaysanayay way saameysay mataqaana ayagana non domicile leeyihiin marka shanta group u kala baxaa non domicile-ka shanta group hadda way wada saameysay shanta group waxaa lagu leeyahay qaarna medicalkooda hadduu ka dhaco oo cusboonaysiinaya oo sii wadayaan qaarna oo sii wadayaan marka laakiin qofka maxaa laga rabaa medicalkaaga intuusan kaa dhicin at least 3 weeks 4 weeks ka hor dhakhtarka tag soo dhamayso kadibna mataqaanaa ayaga hadiraan dan go'aanka soo bax markaas arkaysa leyska in lagu sii wado inaan lagu sii wado markaas arkaysa laakiin ha sugin intuu expire ka noqdo expire markuu noqdo medicalkaagi haddaa gadaal ka samayso already DMV systemkeeda waxaa galay inuu leysinkaaga invalid yahay because medicalkaaga kaa dhacay taas ugu daran marka visa xataa qofka ku imaaday waa non domicile weeyaan muhiimadda waxaa weeye qofkan hadduusan haysanin green card oo 10 years ah ama citizen uusan ahayn waa non domicile noqonaya non domicile marka af English ahaan ereyga la fasiro non domicile waxaa laga wadaa qof aanan deganaansho haysanin oo shaqo u jooga meeshii maalinta la siiyo green card wuxuu helayaa permanent residence wuu ka baxayaa qofkan waddanka shaqo bis u joogay hadda uu ku noolaan karaayo deganaanshuhu xaq u leeyahay haddana hadhow citizen markuu noqdo way ka sii weynaanaysaa marka taasaa loo kala saaray okay xaalku waa saas war cabdisalaan oo soo dhawow waa ganacsiga ganacsiga hello هاي كوسع قف كحية نايو مركا وضع مستان با أنا محيط أسان هاي إيسا بسم الله الرحمن الرحيم نكان هدا يسوق ولا عيال بكارو ما هذا شيء بكارو 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 كارو مقنيه dadkan waxay rabaan sidii mataqaanaa oo cajalad oo kale qof ay dhageystaan bas halo bakaaro uu seexday miya aniga marka sidii cajalada duubo kale u daldalmaa miya maanta dhan wana ma taas xaq ilaahay ma aha السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وإذن سلام إدريس وعليكم السلام دمان يا أصحاب هذا. ما حسنت هني وسؤالي أنا ربي أنا كوي ديو أو كسب سن حاجة immigration كا. فمي الكوي معدني يعني رفوجي أحان لكن سر سبونسر لها أو أبوه هل كان جوبي. يعني بروسسكي رفوجيجي وحي انتو سعودية يعني أصلا ستيزنو يعني مركو ما ذي بقى قحوتي هنا أصلا لو كاني يعني غير كيسي وأسي حريي
oo asagii kadib citizen uu noqday ayaga processkii qaxootigii bay waddanka kusoo galeen ma garatay markay imaadeen I-94 oo yani hay-addaa keentay laakiin asagana kulley waa responsible yani uu ka ahaa ma garatay marka I-94 waa la siiyey waxay xareysteen green cardkii hadda holde ka gala ma garatay oo yani maxay ahaato holde camal waayo maadaama waxaa saamaysay sharciga Trump uu soo saaray marka familka waxaa ku jira ilmo yar oo 18 ka yar ilmaha 18 ka yar ah citizen ma loo qaadi karaa marka ayagoon green cardkii ula haysan maadaama aabahood uu citizen yahay ha citizen waxaa lagu qaataa in labada waalid mid ka mid uu citizen yahay baa lagu qaataa carruurta sidaa rabto u okay dhig ama waddanka ha joogo ama bannaanka ha joogo ama gudaha ha joogo labada waalid midkood hadduu citizen yahay ilmaha wuu u qaadi karaa maya ilmaha inta kuma dhalan yani asagoo sharci lena ma aysan dhalan ma garatay citizen ma doesn't ahayn matter yuusan ku dhalan hadduu rabo ha yuusan ku dhalan fiiri tusaalaan ku siinaya Ay, nin baa hadda kasoo tegay maraykanka oo citizen ah africa u imaaday gabal buu ku guursaday africa ilmo ugu dhashay okay ilmaha u dhashay africa dee maraykan kuma dhalan hooyadiisna maraykan ma aha laakiin ilmaha automatically waa citizen weeyaan wuxuu u qaadayaa warqaddii u qaadayaa maya baasaboorka u qaadayaa waa ogahay middaa yani waxaa waaya qofka markuu adigoo citizen ahayn ilmaha hadday ku dhashaan ilmaha citizenka so ay ka hadda waalidku horreeyeen citizen ma noqon ha hadda soo waalidku citizen ma noqon ha waalidku hadduu citizen noqdo ilmihiisana citizen ay noqonayaan okay ilmaha markuu u xaray karaa green card yani inuu sugo ma baaha soo maahan ha ilmaha wuu xarayn karaa lana tasho intay joogaan reerkaas waa Minnesota joogaan soona meeshii badiyaaba joogtaaye waa fududahay shariifka u taga shariifka asaa nii kala tuuraayo haye walaa maasan tahay marka insha allah shariifka lambarkiisa ku siinayna la hadal isaga haye thanks usoo qora ilmaha dhalanaya ha waa citizen weeyaan sax weeye laakiin ilmihii waddankii joogaa halkanuu joogaa sharcigana ku yimid soo maha okaadi qofka ku xiga ku soco su-aashaanaan baaraynaaye bismillaah halow السلام عليكم الله يكرمك. calaykum asalaam haye waa gartay saacaddii ma la bedelay maya lama bedelin saacaddii walaalayaal waa ku maqlaynaa haa ها waxaan rabay inaan ogaado wiilkii hadda ka degayo lahaa qofka asagoo green card cunuga helin maxaraysan karaa qof oo wadanka macnaa labada waalid mid kamid ah uu citizen yahay ma kan noqo wiilka hadda oo ka degayo father with okay haye ku soco marka anaa ilmo saasoo kale ku keenay marka waxaa la yiri inaad ku heshid waa green cardka marka hore markay green cardka helaan walaal timeka same su-aal oo kale way soo maha ya macnaha su-aashii oo kale waa miya ilmihii adaa ku keenta miya ilmo green maxaa dhahdaa adaa citizen miya ha qaxooti ahaan ay ku imaadeen laakiin anaa responsable adaa soo marka sponsor gariya halka keenay ha marka aniga citizen ahay marka waxaa la dhahay marka ilmaha keentay oo green cardka waa inay helaan waana ilmo yar yar oo 18 ka yar marka weli waxay sugayaan ma xaraysan karaan iyagoo green card helin haye marka adaa maqlaaydo waa la caawin karaa qofkaasoo green card haysan citizen uu noqon karaa ilmaha yar maya waxaa qaatay markii uu dhahay sug mala safri karaa airport okaadi su-aashaas laftirkeeda yarkii weydiiyaan fiirinaya hal mar ii kaadi ah kan I got the green card if
horta citizenka waa loo xarayn karaa laakiin waa sax weeye green cardka ka horeeyo. tan la yiri soo maaha haa hadda tusaalahan u soo qaadanayaa labada waalid waddankay wada imaadeen ama midkooda imaaday ilmihii waddankay joogaan kulligood green card ay haystaan waalidiinta mid ka mid ah citizen noqday haddii ilmahaas uu green card haysto oo kale under 18 na u yahay markaa wuu u xarayn karaa. haa markaas ugu xarayn karaa haa laakiin ilmihii yimid oo kale Haddiise uusan adoo citizen ah oo ilmihii yimid ilmihii uu midkaa this is refugee the child is under 18 years old marka aduu 18 ka weynaadana dee marba u xarayn karaa markaas marka yes waa you're right. adu marka ilmaha si green card kama haystaan weli way sugayaan meeqay waddanka joogeen 2023 ga yimaadeen 2 years okay laakiin wuxuu ka maqan yahay 1 year and 15 months uu ka maqan yahay ilaa sanad iyo bar meelaha laakiin process uu leeyahay markaan weydiinay ama la jaatin wax loo diray meesha laga fiiriyo waxay leeyihiin weli process oo ku jira okay marka waa sax weeye haa marka haddiiba aabihii ama hooyadii midkood citizen noqdaan ilmihiina under 18 u yahay green cardna u haysto waa loo xarayn karaa. haddii intaa mid ka mid a maqan yahay oo muse green card haysanin ama over 18 u yahay way isbedelaysaa markaas. waa fahnay haye soo dhawaada dadka kale fm soo dhawow taamka lama bedelin dadkana weydiinayo hadda soo gala taamka lama bedel. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادرسي ورن الحمد لله. ودهبينada maxaa dhacay barnaamijka ma arkeen habeenada waalida canshuuray cashuurta waa iska bixinayna cashuurta wax weyn ma habeenada howl adag bay qabsatay marka insha Allah iskaajalkii aan ku laaban doonaa isniinta dulaa yiraahdo maanta waxaa yidhi laba habeen dadkii waaba kala fakarayaan nin walba wuxuu leeyahay waddanka waa laga cararay kuwii citizen ka cararay xaaladdu waa ya laakiin maasha Allah aad bay u degan tahay xaaladdu ilaahay wax loogu mahadiyayna ku jirnaa alxamdulillah that is true marka maanta xoogaa habeenadii haddaad maqneed waxaad tiri bal xilligan gal caawa update caawa lama soo geli karo isla hawshaas ay haysto laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa bari waa axad weeyaan habeenka isniintoo kale iskaajalka caadiga ku laabanayna insha Allah marka hawl yar baan ku mashquulsanahay waana iska dhamaanaysaa dulayla insha Allah insha Allah walaal ilaaha kuu fudaydiyo wax kasta oo khayr kuugu jiro insha Allah ilaaha kuu fudaydiyo dirso waxba kugu adkaan maayaan amiin khayr Allah ku siiyo thank you maxaa abdheydoo lahayay markaa maanta cid ma kuu timid wax abdheyda dhalinyaraha hadda soo koraa jiray bilowga markaan bilownay anana howlonga hadda ku jirna cabaaraan joognaa waxay noo sheegeen inay soo mareen oo xaaladda okay tahay safety ay maaragtay ayna wax dhibaato alla soo kulmin dad soo maray arbacadii ayaa ka mid ahaa wax dhibaato lamay soo kulmin gabadhna waxay noo sheegtayba qofay taqaanaa jiray oo I think gabar bay ahayd wiil qof noo sheegay oo zoom intuu ku maray zoomkiiba uu judge sharciga ku siiyey maasha Allah maasha Allah maasha Allah alxamdulillah weya maya wax kasta oo horta wax kasta oo aynu culays moodno fudayd baa ka dambeeya waana mar walbana niyadda wanaagsani waa waxay horseedaa acmaal wanaagsan marka kulli culayskii ina gilgilay Minnesota waxaan ogaa ay sameynaysay waxaa laga yaabaa ummadda in badan dee dadka sharciyada sugayay iyo dadka maaragtay nooc walbaba ha ahaadayna dee maxkamadaha walaala la sugayo dad green card sugaya dad dadkooda u dacwoonaya dad dee soo iyaga laftooda yacni iska badan yihiin borosyashada ruux walba muraad buu lahaa allaha u sahlo marka wixii baaba isfurfurayaad moodaayo
nasri bay inoo ahaydba yaa aad iyo aad alxamdulilah marka ilaahay intii jeelasha ku jirtay ee la qabtay inaa ka soo daayo inta wax sugaysana ilaahay noo fudaydiyo dhammaanteen waan sugaynaa muraadaan leenahe laisu duceeyo ducada way shaqaysaa walaale waa bil rabadaan idrisow acmaashuna wax wanaagsan markastoo barnaamijka aad furaysana insha allah waxaan jeclaan lahaa in lagu maaragtay furo duca iyo qur'aan iyo maaragtay markastana ay dhextaal weliba u noqoto qolka wuxuu u baahan yahay dadkii xufaadda ahaa iyo ducooyinkii iyo maxay tahay qolku waa sibuu u yara qalalan yahay habeenayta anigii iyo maamo kala oo weliba sadaqadana lagu aruuriyo walaale waa bil rabadaane haddii qof maaragtay dad wax la baxayaa jira oo jecel inay wax la baxaan dad waxa weeye walaal baahan baa jira marka barnaamijka in la isku yara lifaaqo bisha rabadaanna ajarku barbar ka socda inkastoo waxaanad qabanayso dhanba uu ajar yahay oo wallaahi aad iyo aad walaal ilaahay khayr ha ku siiye barnaamij aad iyo aad miisaaniyadiisa laba daadihinaysa qof haddaa noo soo raadaysaan waxaan samayn lahayn inkastoo hadda ramadaankii 3 qaybood qayb tagtay waxaan samayn lahayn qof aamina oo waddankii jooga meelaha ugu daran ee xaaladda ka jirta jooga haddii aan habeen walbaba wax yar haddii la aruuriyo qoraya meesha $20 ku dir $5 ku dir waxa awood ku dir hal qof hal qoys afuri qofkaasna on the ground uu joogo oo meesha uu xaaladda ka jirta uu joogo then uu markiiba dadka gaarsiin karo wallahi wax fiican way walaalle wax badan waxa weeye muraadada ilaahay inuu ugu wada sakhirayaa sharkaas ilaahay inuu xijaabaya dhul gaalaa la joogaa iska macsi iyo mataqaanaaye badan marka bisha rabadaan $20 $5 $2 haddii lagu aruuriyo oo marba qoys yar lagu afuriyo marka dambana aynu iidda u tabaabushaysanno sidoo kale intaasoo kale intaynu aruurino agoon yar iid siino yacni dadaan iidi karin baaba jiraba oo ciyaal yaryar oo arday oo masaakiin oo agooma ah marka anu waxaan jeclaan lahaa inaynu barnaamijkana sadaqada lagu barbarwado markastana ducada iyo qur-aanka aan la ilaawin wax waliba markaa way hagaagayaan ruux walba oo kurbaysan ilaahay uu u sahlayaa marka khayrka inaan laga tegin baa ila wacan insha allah walaal ya السلام عليكم وعليكم wada abaaraysiga xagee meelaha ugu daran yaa garanaya meelaha ugu daran ugu liito aan la dhihi karo meesha saa xaaladeeda biilaanta abaaraha haa Soomaaliya waa aad iyo aad way kala daan tahay laakiin وانا سلام ادريسو soo dhawow ما شاء الله arrin fiican baad ka hadlaysaan ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله alla ka cabsiga iyo maasha Allah iyo quraan akhriska marka hore waa in lagu soo galo qolka maasha Allah aad iyo arrin fiican bay gabadha walaashin ka hadashay maasha Allah shukran walaal shukran dad islaam ah leeyahay markasta inaynu islaamnimadeenu ay important number 1 waa inay noqoto maasha Allah aad iyo macnaha waxa weeye alla ka cabsiga wax walba shay walba ugu horeey raasul marka insha Allah haddii asxaabtana dhegeysanaysa halkan ku jira ay garanayaan hawshaasaan ku fududeyn lahayn ila soo xiriir please dhowr wax yar ba Allah ka dhigay habeen walba aan wax aruurino aan dadka ehelkeena walaalahayna muslimiinta ah aanu dirno waxaa laga yaabaa calooshaas duceysay in ilaahay sharciyadoo dhanba ku fududeeyo amuurihii wixii oo dhanba isku hagaagaan wixii oo dhanba inuu ilaahay fudaydiyo haa idrisow innagaa bilaabayna insha Allah haddii ilahaydmo meel haddii lasoo marba ruuxii dee aad u liita lasoo ogaado oo dad mas-uuliyiina aynu hello oo maaragtay Soomaaliya jooga innagaa furaynaba sadaqada ugu horeyno oo bixinayna saas isu daba taagan tahay insha Allah qolkana markasta important bay u noqonaysaayo waynu wadaynaa rabadaan iyo rabadaan la'aanba waa wax yar $20 baa ugu yaray waa qofkii awooda waynu la baxaynaa insha Allah marka ceelasha biyaha meeqaa lagu dhisaa talow meel abaar ay ka jirtaa ceel ka dhisi lahayn meelahaas la soo ogaaday waay idris horta mataqaanaa lacagta oo saxda oo horta ay kala duwan tahay marka laakiin waxaa u badan ilaa iyo 3,000 4,000 5,000 marka annaga ahaan adiga diris ahaan oo kale haddii tima noo samaysid oo lacag laisku aruuriyo
way fiican tahay ceel in la qodo aad u fiican tahay waa sadaqa jaariya saddex kun iyo afar kun iyo waxa ku baxdo laa xawla walaa wayba ka ها yartaaba idris goobaha qaar inay ka yartaan filaya meela qawl ka sii yartaa urta laakiin anaga xarna ceel weyn aan rabnaa samaha laakiin kuwa waxa jira oo xoolaha loo waraabiyo oo barkadir loo sameeyo waa iska 3,500 ilaa 4,000 marka lacag badan maaha reer Mareykan lacag badan kuma aha hadii oo 200 oo isku daro qaadina ajir wala ka helay waxa uu ceelashaasaan u furaynaa waa arrin ka qabtay gabadha noo keentay ceelashaasaan furaynaa ee waxaan sameynaynaa dad baan raadinaynaa meesha jooga meeshaan 500 oo qof 600 oo qof soo gasho bil walba hal ceel baan u dhisay dadka masaakiinta ah ma sha Allah abaarahana waynu ka qayb galaynaa marba meeshii biyo shub looga baahan yahay booyadaha dhaamiya $100 iyo wax ka yar bay ugu dhaaminayaan ummad ilaahay ay dhaansanayaan marka bal horta hadda rabadaanta aynu ilaa iidda aynu isku xidhno barnaamijkaasoo kolaynu 20 agoona aynu iidsiino haddii ilaahay idmo inta ka horeysana qoysas wixii afurin karno aynu ka gaadhno marka barnaamijka inoogu soo dar walaalle mida kale dirisow system bisan u baahan mooy 500 daawata $25 lacag badan maaha marka la isku dardaro waa 12 kun waxaa la arkaa 3 ceel inay sameyso صح okay $25 adin ka baxday laakiin waxa sabab u noqotay 3 ceel oo 3 meel ku kala yaala oo xoolaha iyo dadka iyo cid walba cabaysa okay waxyaalaha anaga waliba hadda wadankeena dhibaatada nagu haysto waxa kamid ah Soomaaliya waxa kamid ah waxa weeyaan يعني resources ki dhulku ay ku jiraan awoodii lagu soo saar lahaa waa haynaa organizing ka horta naga maqan iyo in xayawaanka sida aan bini'aadamka ugu naxeen oo kale xayawaanka loo naxo waxa fiican meesha ceel laga sameeyo ceel alla ceel meesha laga sameeyo meel yar oo xoogaa u jirtana in meel yar oo biyo lagu shubo oo xoolahana ay baalka xayawaanada kale ka cabaana lagu sameeyo iyagana ha duceeyaan ceelka afku ka xiran moogta dhul dhan abaar ka dhacaysa markaasa shimbirihi iyo xayawaanka kala duurka joogo dhan waa ka qaxayaan gaajo wada dhamaanayaan Allahu akbar marka iyagaasna waxa weeyaan way duceynayaan bini'aadamkan waa duceynaya $25 lacag badan ma aha arrintaas inaan organize gareyno waa insha Allah ta'ala organize ay u baahan tahay idrisow very mas'uuliyad inagu Soomaali weyn oo dhan meel gaarana ka dhismayno meel gaarana uma taageeraynayno Soomaali iyo Islaamnimeyno maaragtay teamka waa abaabuleynaa meel kasta oo arrintaas ka jirtana team adigu aad soo xushay oo isku xidhan oo dee si fiican wixii u qaban qaabinay walaalo waxa waliba waxay bilow iyo dhammaanba waxay leeyihiin mas'uuliyad ma fahanti marka si sax ah in loo haddii aynu si sax ah u dardargelino si fiican bay u soconaysaa u dhammaanaysaa marka ceelkuna waa wax joogta oo wax dhamaada maaha mar walba waa wax laga cabi karo oo ajarkiisu uu weligii soconayo weligii waa wuxuu soconayaa sida masaajidka oo kale weeye marka insha Allah khayrkaas ku dadaal maadaama oo hawli kugu yarayn ceelkaasna idris loo qoraa ha idris hawli kuma yara kullayba hadda barnaamijkaas bisha arrinta hirgasho waxa lagu qorayaa Somali Families USA anagoo dhan buu noo ajirno cid walba meelaynu magac u sameynayno ma jira waa magaca halka ku qoran baa wadanaya wax kasta oo la sameeyo ama tiin darbiga lagu qorayaa ma sha Allah laakiin $25 hadii 3 ceel lagu sameyn karo bishii war hal sano gudaheed wadankii wada biyaha ka dhigi karnaa hal sano gudaheed ha haddana abaara xun baa jira abaara xun dad baan arkay wallahi booyadaha la hoos taagan jeegag iyo waxyaalaha ay biyaha ku dhaansadaan booyad meeshay ku arkaan 1 milyan oo ruux baa ku soo shiraya sidii ay u helaan bal inay biyo yar helaan marka abaara xun baa jira hadda marka waxaan waxba ahayn baa walaale dad badani ku dhaqmayaan oo ku badbaadayaan ma garata waxaan waxba ahayn oo nashax siisan subhanallah dad badan ku badbaadayaan ka waran that is very sad caruuraha agoontana waa sax walaale umu xaakima walaale waa runtaada caruuraha agoonta ah waa very important weeyaan maasha Allah waynu iidsiinaynaa halloo guro lacag insha Allah horta idrisow rabadaantan intaynu ku jirno aynu ku dadaalo balseynu 20 qofna Allah ka dhigay aynu iidsiina agoomaha صح وسمعنا
وسمعنا أرنكاس قف الله قف كرب إنه كأو قاتل فضلا هاي السوحيو وحان سمعنا قدي أساسنا رمضان كان كجالسيننا وحلا وحن أودنو وحان كلو سمعنا إن شاء الله رمضان كمان كلا جبحنا إن عيرشاس فوكس قرينو وحوق صارنو ونون بس دي waan wadaynaa weligeen haa insha allah khayrkaas wuu kuu soconayaa ma fahanti إن شاء الله adduunyada waxba lagama qaadaya walaale waa intaa un mar haddii hawli kugu yarayn ood miidhiyihii maaragtay barnaamijka intaa leeg eed ogeyd ee aad ummadda halkaa u fadhiday idrisow codkaagu meel fog buu ku dhacayaa dad fiican baa kugu xidhan runtii oo aad iyo aad u maaragtay mas-uula dad intaan halkaa arkayay maasha allah qofkii soo fuula halkaa ka hadlaba waa macquul weeyaan marka u malayn maayo $20 iyo wax ka yar inay culays ku tahay ka badan bay bixinayaanba صح Mhm. arrintaas waan raadinayaa guddi aan raadinaynaa dad waddankii jooga aan raadinaynaa aamina hawshiisaan u qabanayna aan qorsheeda gelaynaa dan waan bilaabaynaa waan aruurinaynaa waa arrin aad nagu baraarujiso wallahi khayr allah ku siiyo waa subxaan allah ceelka waa intaas 3,000 4,000 5,000 ayaa la bal leeyahay ka waran oo dadan ay ka baahan yihiin caruuro yar oo masaakiin oo hooyo ilmo xambaarsan aynu biyo cabaynin hooyo uur leh biyo cabaynin ka waran war laba ceel xitaa hadday noqono wax badan baynu qabana asxaabta hoos joogta bal soo qora arrintan haddii aad taageersan tahay oo aad ka qayb qaadanayso yes ready soo qor yes ready amalan dhifiirine dadka waa dad khayr jecel wey maasha allah kow yang wuxuu dhahay ready siman ready maasha allah maasha waan allah tirinaynaa bal yaa diyaara arrinta asma sidoo kale fartuush sidoo kale in cabdullaahi sidoo kale maymuun yaasmiin waa taageersannahay maasha maasha allah allah maasha tabaarak raxma ilaahay idin barakeeyo wanaagsan salma sidoo kale riri cabdi maasha allah that's good gacmo wada jir bay wax ku gooyaan maasha allah tabaarak raxmaan hey laki xakiima maasha allah ciise that's good wallahi waxay noo noqonaysaa sadaqatul jaariya aad u weyn bay noo noqonaysaa inta ka dhiman qolkan waxaa weeyaan waa in aan arrimahayna annagana haystay reer maraykana aan ka wada hadalno dadkeenina aan caawino labada haddaan purposkeeda ka dhigno inaan dhexdeennana waxa dhibaatada nagu ah aan iska caawino qofka cusub kan green cardka raadinaya kan sharciga kan tigidka soo qaatay kan lawyerka u baahan kan xaaladda ku furan tahay aan halkaan talooyinna ka siino emotional supportna ka siino experiencingna la wadaagno bishina aan mar qabsano wax iska aruurino walaalahayn xaggana aan caawino wallahi ilaah nagu barakeenayo that's it waaba intaaba walaale hadda dad badanoo waxaa jiray waad ogeydo waxaynu soo marnay arrintii laga sheekayn kara may ahayn runtii ice iyo wixii iswada dhexgalay iyo maxkamadihii iyo wixiiba dad badan baa aad iyo aad emotionally u noqday qolkani wuxuu u noqday dhiirigelin lagu tashado oo habeen walba lagu soo xisaabtamo oo xitaa waqtiga aad soo gelaysaa qaybi sugi la'ayd abad waa lagu nafisayaa wax kala daaya oo waa la dhegaysanayaa oo talooyin oo mataqaanaa xitaa dad sida ay wax u qabsadaan garala ama green cardka ama wax ka caawiya baa talooyin ka helay oo meelay caawitaan ka heleen oo wax badan ma fahante maasha allah marka qolkani faa'iido badan buu leeyahay sadaqadana haddii lagu sii daro waxaan u malaynayaa meel fog buu gaadhayaa haa midda kalena waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah kasoo qaad waxaa la aruuriyey $5,000 la aruuriyey adiga waxaa kaa baxday $25 waa $25 oo markaa adiga dhimato weligaa kuu soconayso sadaqatul jaariya ku ah ceelkaas waxaa laga yaabaa 5,000 in 2 ceel iyo 1 ceel wax lagu sameeyey laakiin 25 iyo 30 adiga aad ku darsatay intuu ceelkaa taagan yahay waa kuu socotaa waa dawaa weliga cimrigaaga inta ka dhiman marka waxyaalaha walaale lagu baraarugsanayn waa waxyaalahaasoo meedhan mideeda kale inagu meel walba oo baahi ka jirto oo everywhere Soomaaliya ah
waa sidaas waa in laga dardargeliyo laakiin waa inaad dad mas-uula oo aad iyo aad maaragtay aynu u samayno ilaan wixii lama joogo waddankii adigu ma joogtid moogta aad iyo aad maya waan helaynaa waana la helayaa haa waxaan xasuustaa aniga qolkani saameyn badan buu igu leeyahay dirisowo waxaa ka mid ah hadda gabadh baa barnaamijkay nagala qayb gashay habeenada ka mid a anigu hoos baan fadhiyey marka malaha nin baa ka xidhnaa gabadha ma garanayo lacag badan baa la yidhi baan u malaynayaa walaalow si toosa uma xasuusto marka gabadhii iyadu lacag iyo hala caawiyo waxba toona kamay hadlin maasha allah waxay ka hadashay un talo unbay inoo soo raadsato barnaamijkii iyo abdheydyadii iyo wixii unbaa dee laga warramayay moogta markay gabadhaasi ka degtay baa waxaan u malaynayaa dad kor saaran iyo kuwo hoos fadhiyey oo commentiga hoos baan ka akhrinayay waxay soo wada qoreen please idirisow gabadhaasi hadday caawitaan u baahan tahay si bareefada u weydii waxaan ka hadlayaa macnaha saamaynta qof damiirla uu dareemi karaayo dee soomaalidu se iskugu naxariisanayso oo haddana garashadoodu ay meel fog u gaadhsiisan tahay oo ay u dareemayaan dee qofkaa la midka ah maanta mataqaana marxaladdu ku jiro marka runtii sadaqadana maxaad u malaynaysaa sadaqadana way la baxayaan way ugu horeynayaan dadkeenu wadadaad u garasho badan waxaa mideeda kale barnaamijkan iyo qolkan ku xidhan gabdho yaryar oo firfircoon oo dhalinyaro ah oo halkan aan ka arkay oo aad iyo aad maaragtay waxqabadkoodii iyo ra'yadoodu ay u fiican yihiin oo weliba jecelnay dadkooda caawiyaan runtii ilaahay ha barakeeyo marka mar walba waxaan idin leeyahay haddaad qof dhalinyaraa tahay iyo haddaad qof hooyaa ama aabbaaba tahay no matter waxaa tahayba way fiican tahay inaad mar kasto ay maaragtay wixii aad la bixi karayso ra'yi ahaan iyo maskax ahaanba inaad qabsato qof kasta oo walaalo waxaad ku dhaanto aadan la xastin haddii aad ra'yi hayso haddii aad wax bixin karayso taas waxaa kuugu siyaadaya adiga noloshaada aakhire iyo adduunba ilaahay wuu ku wanaajinayaa ood mar kasta noqoto ruux qalbiga aanan xaasinimo uga jirin oo mar kasta maaragtay walaalkiisa kala dareemi kara oo weliba garan karaya inuu maaragtay wax ku siyaadin karaya ama uu la qaybsan karaya xanuunka uu maanta dareemayo marka mar walba ha la is caawiyo walaaladayo ilaahay khayr ha idin siiya aad waa sax weye insha allah barnaamijkaas waa bilaabeynaa insha allah waxaa laga yaabaa waxa yaray adiga mataqaanaa oo agtaada waxba ka ahayn in qofkan ay noloshiisa oo dhanba mataqaanaa ay wax weyn ay u tahay marka soo dhawaada asxaabta kale xunaysa assalaamu calaykum sidoo kale ramadaan mubaarak wax abkamaysta wax migrationadii wax kasoo cusboonaada kuwee walaal dhankee waxay ilmaha dacwada iyo dadka dacwada xareysanaya oo dadkooda u dacwoonaya oo marar u dacwoodeen wax hadda la furay iyo waxba maqashaabde horta waa la baangariyey waa tudo Trump oo 75 wadan oo uu baangariyey Soomaaliya iyo Ethiopia baasaboorkooda ku jiray laakiin qofka case waxa xareysan yahay oo arrintaas kaliya ay saameyso wax kale aan jirin oo tusaale kale interview waa loogu wacay wixii waa loo dhameeyay marka waxaa la yiri madaxweynaha wareegtiisa ku sameysay saas dib lagu dhaho I will suggest qofkaas inuu lawyer hire garaysto lawyer shaqaaleysiiyo sababtana waxaa weeyaan madaxweynaha wareegtidiisa sharci constitution oo sharci congress soo maray oo madaxweynaha saxiixay oo la isku wada waafaqay ma aha waa sharci isaga markuu xilka ka dega xataa expire noqonayo weey marka maadaama ay saas tahay qofka lawyer u qabsado oo maxkamad u tago waxaa macquula inuu weyngareeyo oo dadkiisa loo keeno dowladdana waxay ku shaqaysaa case by case ku shaqaysaa banki wuu wada saaray laakiin yaa waa cidda ay saameysay oo baahi qabto maxkamad ka dacweynayso kuwaas markay ay qofka directly u saameysay arrintaas oo dhahayo okay aniga xaaskayga halkaa joogta caruurteydii ama gabadh intay joogta anigu ninkayga halkaa iga jooga
يعني waa immediate family aan yidhahdaa arrinta haddii qofkaas saameynaysa noloshiisa maxkamadna uu geeyo uu dacweeyo uu suudgeliyo dowladda dan waa laga qaadaya isaga qofka keliya laga qaadaya banka dadka kale laakiin way iska saarnaanaysaa okay waa lawyer maxkamadda inay noqoto oo waa ifrita inuu yara wax walba marta waa DNA kulli u dhamaadan insha Allah marka lawyer la noqonay miya ay maxkamadda walugtaada hadday tahay oo DNA marta wax walba martay isku macnaheedu tahay hadaad u qaado haddii loo hayr garay lawyer oo la yiraahdo sababta loo haysto maxay tahay gabadheeda u baahanahay isku meel ku noolaano xaaladeedana xaalad adag bay ku jirtaa meel cilad joogtaa soo waa case si fudud lagu weyn garan karo waay marka waa lawyer aan la kaashanayo kale ma garan kartaa mid qof Soomaali intee joogtaa gobolkaas Minnesota immigration lawyers badan baa jira immigration inkastoo hadda arrimahan ay darbigii waxaan ku mashquulsan yihiin laakiin waa lagula raadin karaa haddaa inboxkiga la soo xiriirto gabar baan kugu xirayaa oo aan dhihi karaa lawyer immigration la raadi Minnesota aad baa looga helaa marka waa lagu soo raadin karaa insha Allah haddaa iisoo dadka intaas qoraal ku soo qora ama lambarka miyaa mise qoraal ku soo dhigaa qoraal iisoo dir and then gabadha la hadlayaa marka hore kadibna lambarkeedan kuu soo diraya wada hadlaysa insha Allah jazakallah insha Allah jazakallah ayaa asxaabta soo dhawaada Idris waxaa rabay inaan ku weydiiyo ceelka $6,000 in lagu qodayo are you sure that one because aniga bil walba waxaa dirnaa almost 300 400 500 dirnaa oo like biil lagu dhaaminayo haddii ceel $6,000 lagu qodi karo maxaa loo baahnaba inaan biil dirno brotherkii horta dadka aniga xataa ceelka qiimaha lagu qodayo inaan ogaadaan rabaa laakiin dadkana waxay noo sheegeen 3,000 ilaa 5,000 inta u dhexaysa in lagu qodaa la yiri laakiin wax fudud oo la soo ogaan karo waaye I'm sure magaalada ay ku xiran tahay location ay ku xiran tahay marka laakiin qiimahaasna loo sheegay marka I think qiimahaasna ma badno haddii xataa la rabo qalabka lagu qodo horta maxay meeq u gooyaa that's another question right haddii ba ceel baahidaas loo qabo aniga waxaan ka cabsanayaa in markii waddanka moogtahay dad baa u maleeya in wax walba xir loo yahay laakiin WFP do kale ama United Nations ama hay'adaha waxa uu shaqeeyo hadday ku arkaan dadkaada inaa improvement ku sameynayso way ka hor imaanayaanba oo kula dagaalayaan way ku dacweynayaan magacay ku sameynayaan laakiin de heer fog markaa gaartay weeyaan wadamo waxaa jiro oo Afrika ka mid ah dadkooda kacay beeraleydeedu rabeen mataqaanaa inay u shaqeeyaan oo beerihii ay fashaan oo dadka ay beerihii biyihii ay la caawiyaan waxyaalo badan u qabtaan organizationka ugu horreeyay ka hor imaaday WFP buu ahaa oo maaragtay dadka lagooyo ku sameeyay markay beerihii u soo go'aan ay ka soo shaqeynayaan intaas ayay waxay keenayaan meel walba raashin free ah marka maxay ka dhigan tahay iska faham waayo waxaa xoogga ku soo tacabatay oo intaas soo qodaysay intaa aad sugaysay markaa hadda soo goysay oo magaalada aad geen ratay haddii raashin bilaash hay'ad ay kula sugto adiga markaa keenayso maxay u muuqataa inay khasaaro ku geliso marka waxyaalahaas oo kale iska dhacaan laakiin ceelka arrintiisa waa ogaanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo qiimaha saxdaan ogaanaynaa kadibna waan bilaabaynaa hawshaas insha Allah adiga maxaa qiimaha lacagta ku dirtaan maxaa lagu qabtaa biyaa lagu dhaamiyaa like almost 500 400 biil lagu dhaaminayo $6,000 ceel ugu qodi karto taasaa kaaga fududaanaysa moogta markii waxaan u malaynayaa dadkaas biyaha loo dhaaminayo meel oo ceel laga qodo ma joogaan aan malaynayaa gooyada lagu geeyaa okay ceelka meel walba lagama qodi karo miyaa I think meel walba ma aha malayna meelo waxaa jirta laga qodi karo iyo meelo waxaa jirta ceelasha Idris adaa ku haystee ceelasha maad aragtay waxay ku xidhan tahay marba siday meeshu biyuhu uga dhow yihiin meesha laga qodayo ama goobtu say tahay ku xidhan tahay ma fahamtay meel waxaa jirta aana xitaa qoditaan badan buu u baahnayno markiiba biyaha la gaarayo kadibna qasabadaha lagu xidhaayo qasabadahaas laga dhaansadaa ceelka intii la qodo ayaa korka laga dhisaa qasabadaha lagu xidhaa
marka qasabadahaasi dadku ka dhaansadaan 4 tuubo ayaa hareeraha laga geliyaa saas dadku ku dhaansadaa midna waa ceel hoos loo qodo oo kor maaragtay ay si yar iyo wax laga mariyo oo halka biyaha laga dhaansado oo markuu maaragtay marna biyahaba lagu shubi karaba marna aan uma baahnayna biyaha lagu shubay halka uu maaragtay markasta dee biyihiisa laga dhaansan karo marka goobtay ku xidhan tahay goobaha qaar riigag waxa la dhaho ma garanaya daaf Soomaaliga daanu riig baan u aqaanaa ama baalka biyaha lagu soo saaro mashiinada gawaarida riig baa la dhahaa yaa riigaasa walaa la qoda riigaasa la kaxaystaa marba meeshuu ka dhow yahay waa lala heshiiyaa contract baa lala galaa 2 ceel 3 ceel waxaad rabtid ama 1 ceel markaas goobta aad u soo la doonayo in laga qodo ayagaa tegaya waad contract bad la gelisaa bil ama 2 ama wax ka yar bay ku qodi karaan ugu yaraan waliba bil bay ku qodi karaan marba si meeshaasi biyuhu uga dhow yihiin bay ku xidhan tahay laakiin haddii biyo dhaweyn oo ay dhahaan meeshan biyaheedu 2 bilood camal way nagu qaadanayaan contractiga ceelka waxay ku xidhan tahay riiga marka wax badan maaha waa lacag badan kuma 3,000 baa qaaliya meelaha qaar way ka yar tahay السلام عليكم وعليكم السلام وهذا السلام الدرسي ما شاء الله سلام waxay ku xiran tahay dhulkana way ku xiran tahay masaajid dhul aan la jebin karin baa jira oo laga waayo biyuhu la gaari karin ana hadda ka hor meel baan damacnay inaan masaajid aan ka dhisnay magaala ah markaas waxaan damacnay ceel handana loo sameeyo dad dhan oo group ah waa la gaari waayay waxa la waayay wixii qodi lahaa wixii la keeno iska yarba way jabaysaa marka dhul adag baa jira markaa dhulka adagna way dhul jilicsan haday tahay biyaha duru waa la gaari laakiin wadan hadda waxa aan la gaari karin oo dhul adag ah anaga hadda meeshaan degno iyo area dhul adag way mafaatay marka dadkaas iyagu aaday oo biyo u baahan yihiin dhulkoodana ma laha maarta ceel ma laha wixii la dhaha la qodana wayba iska jabaysaa wixii yar oo la tago way iska jabaysaa way waayeen wax ku qodaan marka dhaxday ku istaagtay waa iska dhaaftay fasoo la waay birin lagu qodi lahaa marka dhulku haduu jilicsan yahay kulli wax badan ma qaadanayso laakiin dhulku haduu adag yahay I think wax badan baa ku baxaysa fasoo in la keeno wax adag oo wax qodo oo meel fog laga keeno marka dhulkay ku xidhan tahay say u jilicsan yahay isagoo u jabahayo waaran dhulkay ku xidhan tahay exactly meelahaas oo kalena waxaa la sameeyaa baraagaa laga qodaa biyaha loogu shubaa dhowr booyadood baa dadka loogu shubaa mar walba inagu biyo dhaana muhiima soo maaha baraagna ma qotaan waa saa ceelal baa in la qodo ceelashii waa la tiri waayay waxay ku xidhan tahay dhulka waa ceelkii baa laga malaynayaa ya meelaha hadda booyada lagu dhameeyo ceel baan ka dhaweey marmalaynayaa ceelka ma dhawo meel boodo 200 miya waxay tagayeen habeen maalin ama 2 bari bay sii soconaysaa hadda waxay dhahayn 200 baan loogu dhaamiyaa marka waa dhul aan u dhaweyn ceel lama dhawo waa iska gasiiran camal gasiirada ka soo qaad marka way jirtaa dad iska baahan oo iska rafa on horta baahida kale waa iska laakiin on xoolihi waxay ka waraabinayaan oo halka waa in boodo xoolaha lagu geeyo foos meel imaadaan mala meel xoog ay tagayaan halkaas xoolihi biyo lagu geenayaa dadkii marka dad badan oo cidnana oo aan weyn oo iska qarsoon baa jira oo media xitaa aan waxba ka warqabin way jiraan dadkaas aan hadli karin oo aan garanayn meel ay dadka la hadlaan oo meelaha media magaalooyinka dhawin waa soo duubaan moogtahay laakiin meelo badan oo wallahi iska god iskaga jirto qarsoon baa jirta oo ilaahay xaggi ka nool yihiin kuwaas koley nolosha ilaahay ka filan way jirtaa dad badan oo iska rafaadsan marka waxay ku xiran tahay booyad hadii dhul qodahayo dhulka haduu jilicsan yahay waa easy ya laakiin dhul aan la qodi karin baa jira oo wixii la keeno way jabaysaa wixii la keeno wuu jabayaa marka dambe waa laga caajisay waa iska dhaaf wala meelahaas ka in la iskaga guuraa waxaan because dadku ku maranayaan xilliyada abaaraha dadku maya waa waxa way bartay aqoon ma hodmana deegaan wadanka xagee aadana ku dhahan kartaa iskaga guura meesha idriso waxaan ku weydiinayaa yani hay'ad dad saas oo kale ayo group oo maaragtay ay ilaahay dartii waxyaalaha u qabanayo kale haddii ay sameeyaan waxyaalahan ama ceel qodis ama masaajid ama agoon ay wax siiyaan oo bil walba haday doonaan ka bixiyaan iskoolada samo sadaqadu way fara badan tahay marba sidii
marba dhinaca baa laga eegaa marka hay-ad ku hor istaagaysa oo odhanaysa ku dacweynayso oo waxyaala ma waxaasaa dhici karaa maya arrimaha yaryarka waa iska caadi arrimaha haddaan ka hadlayno oo kale wax iska normal waaye waa iska caadi weeyaan laakiin markii arrintii ay dhaqaalo saameyso oo kale oo hay-ado waaweyn waxay budget ku qaadan jireen oo kale adiga aad tiri ummadda waan ka kabar gareynayaa waxaa weeyaan si kale kula dagaalamayaan laakiin wax haddaan ka hadlayno wax suurtagala wey waa la sameyn maya tan waxaan rabnaa waa iskaa wax u qabsa weeyaan waa wixiina soo tiim haddaynu la noqdo tiimkaasi iyagaaba hay-ad ka xoog badanba hadhow waxaad helaysaa hay-ado isku kaasoo dhisayo kule dadkan wax qabanaya waa in la taageero marka waxyaalo badan baaba furfurmi karaba marka hore haddii la bilaabo marka dambe waxaaba laga yaabaa inay jaanisyo badani u furmaan ma garata oo iska keensoo doontaan weliba ilaan ruux walba ra'yi buu hayaa iyo ruux walba wax buu keenayaa fikrad buu keenayaa fikradu wayse sii bira dhalayaan moogti marka wax waliba bilow bay leeyihiin waa sax wey waa sax I agree masha allah marka insha allah walaala khayr badan baan kuu rajeynayaa hoos baan tegayaa barnaamijkaana bal inoo wad afur baa la kala aadi doonaa mar dhow waana isku soo laaban doonaa mar kale hadduu ilaah yidhaahdo laakiin su-aala ku weydiina idriso xawa imaanaya masoo gelay arrintaas abraa inaan ka jawaabo hadda maanta waa sabti weeyaan axad marka maanta iyo berri geliya xiliyadan oo kale aan soo gelayaa iyo ma saamixayso xilligaa kadib laakiin isniinta iskaajar ku laaban doona insha allah caadiga ah soo beri waxaa soo gelay laakiin waqtiga camal ah xilliga hadda maanta aan soo galno kale aan soo gelayna insha allah haddii markaa kadibna maalinka isniinta iskaajarka caadiga aan ku laabanayna insha allahu tacaala soo maanta what time aa soo gashay wallahi ma garanayo waa un iska bila waxaan malaynayaa hadda waxaan ku jirnay hadda 3:54 ay taani meelaha markay 1 ahayd miyaa ma aqaanaan soo galnaa malayna gadaal iga sheegi doonaa insha allah waxaan sameynaynaa asxaabta dadka afur iyo waxbaa dadka sugaya hadduu laa yidhaahdo beritaan kusoo laabanaynaa xilliyadaas oo kale meelahaas duhurada markii la tukado taab camera kadibna iskaajarkeena ku laaban doonaa insha allah waana mahadsantihiin 100% haye idriso khayr badan haye walaal insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi